waa sandaqad yar oo ku dhex taala badda gudaheeda. Waxaa ku nool 27 qof. Haddii aan ku ilaa bal ka baran waa dal la mid ah dalalka kale ee adduunka. La yaab ayay kula tahay in 27 qofood oo kaliya ay noqdaan dal. Balse waxaa ka sii yaab badan in dumar dhan aysan ku nooleen dalkan marka laga reebo boqoradda. Waxaan booqan doonaa dalkan cajaa'ibka leh. Labada tiir ee aad u jeedo ee dusha laga saaray dhismaha yar ee jaqafta ah waa dalka adduunka ugu yar oo ay ku nool yihiin 27 qof oo kaliya. Dalkan waxaa lagu magacaabaa Sealand. Ma awoodid inaad gasho adiga oo aan haysan ogolaansho. Waxa uu leeyahay baasaboor u gaar ah, lacag u gaar ah, ciidamo u gaar ah. Haddana waa 27 qof oo kaliya. Waxa uu ku yaalaa gudaha badweynta waqooyi ee Yurub. Laba qaab oo kaliya ayaa lagu tagi karaa oo ah inaad doon qaadato si aad u gaarto iyo inaad helikabtar ku tagdo. Waxa uu leeyahay helikabtaro iyo hub u gaar ah. Mar aan baarayay maanta waxaan ogaaday miisaaniyadiisa sanadkan 2023 inay ka badan tahay 200 oo milyan. Waa in ku dhow miisaaniyadda dalkeena Soomaaliya. Ogowna waa 27 qof oo kaliya oo dal noqday. Waa boqortooyo dhan oo leh boqor kaasi oo hogaamiya dadkan adduunka ugu yar. Michael Roy oo ah boqorka dalkan waxa uu taliyaa dadkiisa oo dhan 27 qofood. Waa boqortooyadii ugu yareed dunida. Waxaase lagu sheegaa in dadka intiisa kale ay yihiin isla boqortooyadaasi oo haddii si kale loo dhigo ah in dadka dalkani ku nool ay yihiin kaliya hal qoys oo ku tashaday inay ka go'aan adduunka intiisa kale. Sanadkii 1967 ayay ku dhawaaqeen in ay yihiin dal madax bannaan oo wax kasta ay u gaar yihiin lana mid ah dalalka kale ee adduunka. Xilligaasi ka hor waxa uu ka tirsanaa dalka boqortooyada Ingiriiska. Laakiin arrinta cajiibku waxay tahay in dalkan oo dhan dhismihiisa markii hore loo qorsheeyay goob gantaalada waaweyn laga rido isla markaana laga maamulo hubka culus. Balse waxa uu haatan noqday dal dhan oo ay boqortooyo ka taliso. Dalkan waxa uu leeyahay sida dalalka kale ee adduunkaba hoteelo, maqaaxiyo, goobo lagu madadaashado, xabsiyo ay ku xiran yihiin maxaabiis iyo shuruuc u gaar ah oo lagu dhaqo. Gudaha dalkan haddii aad eegto waxaad ku arkaysaa wax kasta oo yaalay dal horumaray. Dalkan ayaa haatan dabar go'aya. Dadka ku nool oo dhan 27 qof waxay kor u dhaafeen da'doodu 30 ilaa 40. Waxaana xilliyada qaar sida haatan oo kale aan joogin wax dumar ah marka laga reebo islaanta boqorka oo ah boqorada dalka. Dalkan Sealand weli waxa uu raadinayaa ictiraaf. Laakiin haddii la aqoonsado waxay dhalaysaa in qoyskii ka kooban 20 qof uu noqon karo dal. Haddaba daawade bal adigu aragtidaada muuqaalkana sii faafi.